gabi ahaanba la soo gabagabeeyay ciyaaraha Somali Week oo maanta lagu qabtay magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. labadan kooxood ee maanta tartamayay ayaa waxa uu soo daabasho tagay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo madaxda gobolka. sidoo kale maanta waxa la guddoonsiiyay labada kooxba hadiyado lacag iyo koobkii kama dambaysta ahaa. labada kooxood ee tartamaysay waxay ahaayeen Liido iyo Midnimo. guushana waxa ay raacday kooxda Liido. aad baan ugu faraxsanahay maanta ciyaarihii aan ka soo qayb galnay halkan toddobaadkii Soomaalida kansular Jamaal Cusmaan iyo Macallin Qariidi iyo dhamaanba marti sharafta kale maanta ka soo qayb gashay ciyaartan iyo labadii kooxood halkan ku tartamayay Midnimo iyo FC Liido dhamaantood waxay soo bandhigeen runtii ciyaar aad iyo aad runtii u wanaagsan waan u hambalyeynaa labada kooxood dhamaantoodba kooxdii guuleysatay Midnimo iyo kooxdii mataqaana laga guuleystay labadaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tournamentiga sida uu ku bilowday iyo qaabkii uu ku soo dhamaaday intaba waxaan u rajaynaynaa insha Allah next year haddii Alla na gaarsiiyo ciyaarahaasi iyo kuwa lamid ah insha Allah inaan isugu nimaadno maanta runtii waxa la soo gabagabeeyay ciyaarihii Somali Week loo qabtay yani munaasabadii oo 1 Luulyo iyo 26 Juun ciyaarahaas maanta way soo gabagaboobeen runtii yani maanta meeshan waxa ka dhacday ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo runtii yani taageerayaalku ay si fiican u fiirsadeen waana lagu kala guuleystay mar labaadna waxa leeyahay kooxdii badisay hambalyo koob aad iyo aad u qurux badan ayaan ka qayb galnay oo sanad walba lagu dhigo Minnesota oo July 4th oo mataqaana aad iyo aad u qurux badan marka waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaasha iyo dadka ka soo qayb galay iyo dadka soo balangareeyay ciyaar aad u qurux badan bay ahayd oo anagu dhan aan daawananay oo xaraarad badan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan u hambaliyeynayaa teamka Midnimo kooxda Midnimo kooxda laga guuleystay Liido laftirkeedana ciyaar khatar ayay soo bandhigeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta lagama soo koobi karo farxadeeda koob qurux badan ayaa noo dhamaaday waxaan u mahad celinayaa guddiga ka soo maartay koobka quruxda badan oo in muddo ay ku jireen maanta si qurux badan u soo gabeeyay macallimiinta qaranka Soomaaliya bahda miidiga oo maanta kaalin ka qaatay madaxdii gobolka Minnesota ayaana la joogta oo Jamaal ka mid yahay aadaan u maasantiin waxaan rajeynayaa dhalinyarada koobka qurux badan saan u dhigay in sanad walba san ku sii xigo wax ka sii qurux badan ay soo bandhigaan hadalka kuma dheeraanay aad u maasantiin ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Maxamuud Xuseen Cali waxa farxad ah maanta inaan ka soo qayb galo ciyaarahan tartanka Somali Week maaragtay lagu qabtay Minneapolis waliba aan kala qayb galay odayaasheeda qatarta qaaliga ciyaartooyda mustaqbalka ma sha Allah aad aan ku faraxsanahay waxaan u mahad celinaa dhamaan bahda miidiyaha iyo Nabad TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga saddexan waa Cabdullaahi Maxamuud Axmed kabtanka naadiga Midnimo aan ahay maanta u jeedin ما شاء الله الحمد لله إلهي قوشونا وافجي والله دذال أو بدن أسوس ميني سمر كدن إلى سدح بلود أبوري وحس فوليني مرك الحمد لله إلهي قوشونا وافجي دذال كنا نمشي كنا محمد مهد علنا يا فانزياشنا محمد مهد علنا تيميتس كيجا and then most importantly محمد مهد علنا كوتش كيجا سيجا كوتش كيجا فيصل الحمد لله عليه. أسمر عبد النور نبات TV مينيسوتا.